qaar ka mid ah heesaha abwaan cabdiqani xaaji Aktoobar ee xambaarsan dayrada qaawan ayaa qanciyay qaybo ka mid ah haweenka caraysan ee niyad dhiska ugu jira Snapchat-ka. dhaawacan dhaymada ku raysan ayaa helay muddooyinkii dambe dawooyin sahlan kadib markuu doctorku u qoray badiba dhaawacii dhowljiifka ahaa murtida abwaan cabdilaahi xasan ganay taasi oo dhayda meelaha aan dhakhtar gaadhin. haddii ay kusoo weerartay baruurtu ama saxaydho raac talada doctorka isu dheelitirka lafaha iyo baruurta kuna ciyaar heesta abwaan faarax murtile ee jamjam istaag adigoo raacaya qaab socodka jamjam istaag. haddii aad caadaysatay cadho badan ama cabasho badan oo barigii hore nabcayd si aad naftaada u badbaadiso guur amase guurso amabase ma u malaynaysaaba inuu ku asiibay mid kamid a cudurrada ka dilaaca qurbaha. hadday jawaabtaadu tahay haa, waxaan ku hayaa doctor aqoon sare u leh cilmi nafsiga iyo xalinta khilaafka soo kala dhexgala qofka iyo naftiisa. calaamadaha lagu garto xanuunkaasina waxaa ka mid ah anaa og, anigaa fahansan, waan la socdaa, waan ka shisheeyaa, dadkan oo dhan baan ka horeeya. haddaad isku aragtay mid ka mid a calaamadahaasi fadlan la soo xidhiir doctor Mustafa Birxanuuje oo ah doctorka cilmi nafsiga iyo cabashada naftaada. haddii se aad tahay hoobal hibana u leluuqda ay hawli ka haysato hirgeliwaaga heesahaaga oo heestii hadda soo baxday ee fiyuga kaga horeysa taadii kala hore waxaa hubaala inay ku heleen abwaanare qarqoora laxamiista qalooca iyo musician qubqaca. haddii se aad tahay siyaasi oo siyaasadaadu hagaastay mase hana qaadi weyday waxaa go-ay bridgekii isku xidhaya hankaaga iyo himilada shacabka dhaqsa ugu hagaag goobta fadhi ku-dirirka ee kuugu dhow kuna qoro buugaaga xusuus qorka qaybaha ka anfaca mawjadaha hadalkeen loo miidaan dayeynin madashaasi ka socda. haddiise aad tahay ganacsade isaga kala goosha China iyo Dubai keenana qaar ka mid a bariiska baastada daacweynayaasha diibiilayaasha iyo buraashadaha caruurta oo binina ka faa'iideen noqoshada bulshada u keenay ka dhexbaad inay kugu soo baydheen baysteema agoomeed ama hanti dhulood boobtay. ugu dambayna waxaa la laalay xeerarkii ay ku shaqaynaysay maxkamadda naafada caashiqa ee adduunka waxaana dib looga furay dalka Sweden halkaas oo uu ku sugan yahay abwaan Cabdirasaaq Xaamud Caydi Jaylaani oo ahaa aasaasihii